guddiga joogtada ee golaha guurtida ururka qareennada Soomaaliland culimaa u diinka iyo saddexda xisbi qaran ayaa maanta kulan ku qaatay golaha guurtida waxaanay ka wada hadleen xeerka kufsiga oo shariicada islaamka ka hor imanaya waxaanay madaxweynaha ugu baaqeen inuu xeerkaasi baajiyo faafidiisa iyagoo ka hadlayna waxa hadaloodoomida marka macnaheedu muxuu noqonayaa ninka qaadiga imika hadii loo geeyo garsooraha ah laba qof oo ikhtiyaarkooda ku sinaystay oo aan amal ka dhigan gogol dhaafna aan samayn muxuu ku xukumaya Soomaha in la yiraahdo un taan isla ogolayn un baa ayaa ciqaab loo iyada loo hayaa xeer laakiin taan isla ogoliyada wax lagu marka ugu fiican waa in la yiraahdo hadaan la oranba waa fasaxiyadu marka ugu fiican waa in la yiraahdo iyada looma hayo wax lagu xukumo ta kale waxaynu ogsoonahay xeerarkan meelaha laga soo dheegtay laga soo turjumay iyaga laftoodana waa la akhrinaya marka la fasiraayo إلا ربما معني سين لفهمه واحد تجريمين أنا في الدنبيات أي كذا عقابنا وشيء يعني وقرأ تكون عدا سيندا أما قال ماذا كون عدا اختيار الآن سيخصب وحوي أنا عدا حير كانوا في الدنبيات كذا يا قال ماذا يفرق عيار كنحمر لبعض اللمانة إسقبه سيدا وما أورانا يول أفك وجوب بالعين مايو واحد شراء لقات ككم ده واحد هذا عموم كوين لاستعماله إري أي صوت جالي كران وحياة بدن يهوس إيمان كران وحلا استعمالي قف كسته كلمة ده كسته ويرفعنا معنا فايدين اسمه قف كسته ويسقط بعيد جنسي عناية قف كلا فرافرية أما قف كلا إنه فرافرية معنا أسر تجلية عقاب الله شيء قف كسته مركل يري لما أوران كم تيران نينكا iyo xaaskiisu lama oran meel lagu ma sheegin taas waxaan niriyo ragga qaar koodo de qawaaniinta aad u yaqaanaan ku niri wal waxaad ka warantaa hadii xeerka gabadhi ay qaadato soo dhulka gaalada laga sameeyo oo ay tiraahdo ninkaygii xalay uu itaataabtay ama base galmu ila sameeyay anoon ogolayn oo ay ku ashkatayso ninka garsooraha ahi xeerkaasuna hadduu isku koobo aanu shariico iyo diin iyo wax kale aanu eegin xaq ma u yeelanayaa inuu ninkaas xukumo ciqaabo uu yeelanayaa bay jawaabtaay noqoto waxyaabaha taa dadka qaar kood ay ku soo arooriyeen waxa kamid ah waxay yiraahdeen meelaha qaar kood waxa lagu sheegay galmo sharci darro ah de galmada sharci darradii waa maxay iyada lafteeda isweydiin leh galmada sharci darrada ah ayay kamid tahay ba agtooda dadka waxaan laga soo qaatay waxa laga soo dheegay shan xeer oo shan wadan ay leeyihiin halkan baan ka sheegayaa qorta eega baadha haddii isma waayaan annaga dib noogu soo celiya shanta wadan ee xeerarkooda laga soo dheegtay ka koowaad waxa weeyaan xeerka faldambiyeedyada galmada la xiriira ee dalka Sierra Leone waxa la yiraahdaa Sierra Leone Sexual Offences Act 12 bishii waa xeerka 12aad 2012 ayaa wadankaasi ansixiyay xeerka labaad ee laga soo dheegtay waa xeerka faldambiyeedyada galmada la xiriira ee dalka Gambia waxa la yiraahdaa Gambia Sexual Offences Act waxaana isna la meelmariyay 2013 xeerka saddexaad ee laga soo dheegtay waa xeerka South Africa Sexual Offences and Related Matters Amendment Act xeer number 32 oo isagana la ansixiyay 2007 xeerka afraad ee laga soo dheegtay waxa la yiraahdaa Kenya Sexual Offences Act isagana waxa la ansixiyay 2006 xeerka shanaad ee laga soo dheegtay isagana waxa la yiraahdaa waa heshiiskani waxa la yiraahdaa heshiis goboleedka ka hortagga iyo xakamaynta tacadiyada galmada ee lagula kaco haweenka iyo carruurta ee shirka caalamiga ah ee gobolka haraha weyn ee Afrika Great Lakes Protocol on Prevention and Suppression of Sexual Acts Against Women and Children oo isagana la ansixiyay 3 November 2006 qodobadii fawaaxishka ahaa ee dalka lagu soo saaray ee ceebta ahaa oo kor loo qaadayo waxaan culimada ku boorinayaa oo leeyahay mar walba waxa gaar ka haysan diinta islaamka inaynu gaar ka hayno way weerar joogto ah oo soconaya ayay inagu hayaan gaalo waxaana u adeegaya oo in la layn doona kuwa inaga kamid ah oo si kasta ay u adeegsan karaan ay u adeegsanayaan
adduunka maanta waxa lagu rogayaa waa lacag laakiin waxa weeye qofka muslimkii ma yaqaano lacag ee wuxuu yaqaanaa aakhiro iyo khayr inuu shaqaysto ayuu yaqaanaa haddii ay noqoto adduunka intaad ku noolanaysaa waa ayaamo tirsan oo aad iyo aad u tirsan oo aad iyo aad u yar waxaa la isaga tegayaa good madow oo aad u madow ayaa la iskaga tegayaa nin waliba wixii uu gashaday uu ka helayo ragga qaar u madoobaan maayaan laakiin kuwa waxaan oo kale ka shaqaynaya wuu u madoobaanaya kala qodob yar baan ka odhanayaa xeerka waxaa dilay distoorkeena laftiisa ayaa dilay xeer noolna maaha cid lagu dhaqi karaana ma jirto distoorkeenu sacad wuxuu odhanayaa xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamku waa waxba kama jiraan xeerkana ama madaxweyne ha saxeexo ama golo wakiil ha saxiyaan waa waxba kama jiraan cid lagu ciqaabi karaana ma jirto haba yaraatee qodobka labaad ee kaadaya waxa weeye waa ilduuf ku dhacay golaha guurtida waan xusuusinaya golaha guurtida distoorku golaha wakiiladana arrin buu gaar u siinaya golaha guurtidana waxbuu gaar u siinaya golaha wakiiladu wuxuu gaar u siinaya arrimaha maaliyadda kuwa iyaga idinka leh laakiin laba arrimood arrimaha diinta iyo dhaqanka ku saabsan waa khalad inay golaha wakiilada ka soo baxaan waa khalad weyn waana khalad dhacay maanta khaladka maanta dhacayna waa ka waxaa ka wakiila arrimaha dhaqanka iyo arrimaha diinta golaha guurtida oo uu distoorku siinaya ma aha golaha wakiilada waa inay idin daba joogaan oo golaha guurtida ay u daba joogaan wixii diinta iyo dhaqanka ku saabsan maanta ka bacdina waxaan idinkula dardaarmayaa iska ilaaliya iyo idin haruursani maanta waa guul baan leeyahay waxa ay jebisay maanta gaalka hargeysay nala jooga ee isleh si yaroo fudud baad ku dhaafin karaysaa adigoo ama mid diirkooda adeegsanaya ama lacag adeegsanaya dano aad ka soo waariday waddamadaadii waxaan leeyahay dareenkaa shacbiga ka yimid shacbigaana lagu dhaqaa xeerarkee dareenkaa ka yimid ee ay kaga hor yimaadeen waxaan leenahay sidaasaanu diyaar ugu nahay mar walba waana markii koowaad ay halkan soo gaadho awal hore may soo gaari jireen halkan taariikhda intaynu jirnay waa markii koowaad ee xeer layna dhaafiyo la ansixiyo gebi ahaanba diinta islaamka hor imanaya axmed ismaaciil cabdi shabkadda caalamiga ee Hadwanaag News magaalada Hargeysa